kulanti wanaagsan ciyaarta ina daawanaysa idilkiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo ay ugu baratay xiliyadan oo kale TV-ga caalamiga ee Somali Channel. Maanta ayaa studio waxaa noogu martay laba ciyaartooy oo barnaamijkii magaca ku lahay xulka Soomaaliya. Ciyaartooy koowaad oo daawad doonta waa Xasan Xuseen Kulmiye oo ciyaaraha markaa ku soo biiray 1972 ilaa 79 asigoo markaa naadiyo ay kamid yihiin Fiyaad soo ciyaaray kuna jira xulka qaranka. waxaa kaloo garabkiisa taagan Maxamed Ismaaciil oo wada taqaanaan oo ciyaaraha ku soo biiray 1974 ilaa 81 oo ah ciyaartooy kamid ah ciyaartooydii Soomaaliya ugu magac weyn ama markaa loogu ololeeyo inuu ka yahay ciyaartooydii ugu magac dheer ee Soomaaliya. waa tahay sida aad ogtiin barnaamijkeena ayaa wuxuu ugu saabsan yahay horumarinta sportiga annagoo markaas faraaqeynayna ama ku sameynayna Olombikada Soomaaliya waxa ay maanta u qabato ummadda Soomaaliya haddii ay markaas tahay madan guud iyo dan gaar waa tahay waxaan jeclaan lahay haddii ogol yahay injineerka inuu noo baleegareeyo cajal yar ah marka hore rabno in aan dadweynaha tusno markaa wax kale ma oranayo minaa sportiga sidiisaba waad aragteen minaa xiriirka Soomaaliya xiriirka adduunka ama FIFA waxa qabto qof ciyaartooy ah ama qof caan ka ah micnaha bulshada oo markaas ku jira anaga waxaad moodaaba xiriiradeen waxa haysta dadaan la kasayn meelay ka yimaadeen ciyaartooy ahaan ciyaartooyda waxay tahaan aan garanay waxa kaliya ay ku jiraan ay tahay waa dhaqaale doon oo kaliya qofka markii la siiyo 100 kun hadii la siiyo 80 kamid ah dad dalka galiyo 20 qaata xataa faa'iido dalku u ahaa leeyahay dadka taa anaga ma aragno waxa la keenay xataa isbartiibada istaadiyo kooni in coos la dhigay ayadana ay jajabanta marka meel jajaban cooska la dhigay muxuu dalku u faa'iideynayaa marka maxaa ka horeeya waa inaad sarta dhistaa kadibna meesha la fadhiisanaa markaa dhistid cooskana aad dhistaa taana waxaa ka sii daran in birihii isbartiibada yaalay dad mas'uuliyiin oo naqaano xiriirka mas'uulka inay qaataan ay dubay ka gataan mid ogaa karta mada ama cid ka hadli karta mada marka annaga waxaan leenahay qofku xor baata qofku maalin buu dhimanayaa wixii dhibkeeda haysta inaad ka hadashaan maalin kasta ilmihiisa ceer iyo ay u qaadanayaan iskaaga nool Yurub joogo barwaaqo ku jiro dib oo haysan hadduu lacagtaada qaato ama noloshaada adigoo ku dheelay warnaa nolosheedu ku dheelaysa naga leexd in la dhawo wax waajib marka aniga waxaan idin leenahay doorashada ka dhacayso annaga Soomaaliya ciyaaraha gobolada la qaban jiray ciyaaraha gobolada dawladdu waxba u qaban jirtay bulshada inay isbarato kii Kismaayo ka yimaada kii waqooyi galbeed ka yimaada kii ka yimaada bari in meel la isku keen bulshada isbarato hadda sportiga hadda noo jir waxaad moodaa bulshada inuu kala raacdeynayo oo afar kooxood oo wali hogaamiyo kooxyada amal u dhisan qaab qabiilo awoodii qabiilada wali inay xamar ka jirta moodo doonayo macnaha inuu qoriga qabiilkiisa ay ku doorto war adiga qori waa laga tagay hadda waa yaad maxaa taqaanaa waxaad soo qabatay maxaad banooni soo dheeshay garoonkee ka ciyaari jirtay bulshada maxaa u soo qabatay marka aniga waxaan ku tali lahaa macnaha waxa la dooranayo ama guddiga hoose ahaadaan ama baarlamaaniga hoose inay ka mid noqdaan ciyaartooydii hore baahda sportiga hore barnaamijka markaa uu hagaagaya laakiin haddii la yiraahdo nin Sweden joogo ama nin Stockholm ama joogo London haddii la yiraahdo xamar mas'uula ka tahay ma soconayso ma fahant marka bulshada waa isku qofna yoona cabsanin ilaahay baa laga cabsadaa oo kaliya qofna iyo qofna ka cabsan kullaan saaxiib aan la kuwa hadda qolku isku xirto ayaga isdoortay iyo kuwa hadda marka kuwana hadda ayagana qol isku sida aad arkayseen daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Sheekh Cali Clay oo markaa ahaa ciyaartooydii goolada markaa u ciyaaray gobolka Nugaal ayagoo markaa ciyaartooydii kaleeto ee barnaamijkii ku jireen markaa meesha ay ka hadleen oo kamid ahaayeen Sharke iyo Koran waa tahay waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Cali oo taqaanaan Maxamed waxaan ognahay sportiga Soomaaliya muddo badan dhowr 3 sano sidii Soomaali burburkeeda kale inuu burburo marka labaad waxaan ognahay maanta in Olombikadii at least ama ciyaaro la qabto sidee markuu aragtaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin ayadoo la isku khilaafsan yahay waxaas la qabanayo inay wax dhaamaan dadka qaarna waxay u arkaan sida ninka hadlayo kaleeto in Olombikada ama sportiga ama maamulkii dad aan sporti shaqo ku lahayn oo dana qaas wato in ay wadaan marka adigoo fikirkaaga markaa ka hadlay Maxamed Ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله دمامبا داود ياشا Somali Channel وليها Somali Channel كاميرا مانكا mahad baan idin soo celinay gaar ahaaneed
fursada siiseen maanta inaan bahda sportiga inaan is aragno amba aan wada sheekeysano. su-aashaas haddaan kaaga soo jawaabo de olympic waxay waa naga budbateen, wax badan baana sheekadan socotay. aniga kolleyba waxay la tahay anu kolleyba qof aan mudici gaar ahaan aan ku leeyahay ma laha, laakiin nin Soomaaliyeed baan ahay oo kolleyba cod baan leeyahay. ilaa iyo hadda horena waa u sheegay, weligeena waa sheegi jiray, ima muuqato aniga wax daacada oo guud ahaan Soomaaliya amba wadanka Soomaaliya la yiraahdo geeska Afrika ku yaalo amba sportiga Soomaaliya guud ahaan dad u soo jeeda inay wax u qabtaan. aniga markaa kolleyba anigu ilama aha dan gaar ahaaneed, ilaa hadda dan gaar ahaaneed iyo saaxiib baa ii muuqda. dan guud ahaaneed oo Soomaalinimo ku jirto ilaa hadda ani Maxamed ahaan fikirkayga khaaska ma qabo ilaa hadda inay wadaan wax oo guud ahaana. waa gartay. waxaan jeclaan lahaa xasan xuseen asigoo asigana markaa kusoo dhawaanayo. xasan, waxaan ognahay olombikada in cayaartooydii barsamaadkii idinka baa ka mid tihiin lagu kala qaybsan yahay. sidee u aragtaa hawsha ay hayaan iyo waxqabadkooda? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أرنت لنا أن كان لنا والله نمان كماش الجوجو أو وضع إلهم بجمانته ونمان نفتوض أهوري إن أي صوماليا وحقبتان ونمان أنت كتجي أم بحاجة كجوجي أم بحاجة جوجي أنت كل ما تنوى نقلنا وعكسوا بالله بكوبي وأكل أنت ويش وأكل أنت سعيد مقابل وأكل أنت marka aniga hadii aan inta joogo dadkaas inaan wax ka sheego oo iraahdo amba way xun yihiin amba way fiican yihiin, wuxuu yiri ninkii beer falow yiri oo badarkeeda cuna rag dhow yiri ninkii falow waan kartisde ninkii xamar tagi oo soo doorta rag dhe ninkii tagi waayna waxa tiraahdaa kartisde. marka yani ani waxaan u arkaa inay dad maamul wada ay yihiin, naftooda yihiin. aniga مثلا أنا وحنا فوتبولر أنا هاي معلنا أنا هاي وحنا أفرع إذا الصومال ما جرت أنت نجوع إلين لكن هذا حاجة تغو أون صفكي وحكا قالوا أون ضدك وحلق قيب صدر فرصة الله، لكن نين ما ندي بدي جو مثلا نقول ذا كجو هذا الكسوة مغلاني، لكن أنا وكلا أو ماشان جوجو أم بمارك أم وحب الصومالي أم قبل يعني والله أنا وحنا أركان ما كاس إنه نمام جيسيالا وودن كودا نفط هذا وهري حمر نوات عنا هذا تكتمت أنا سديت بلاد من سوي جوجي وحن جوج عياري لما قبل هذا يعني حمر وحاول عوض وهو يتي بريم سوي جديد وتا ممكن ما كاس وحنا أنا استهلان ولي بلاد إني لو قدره، لكن أنا ما كاس وحنا قبائل إني أمان ليه أنا شخصيا وأوتني أيها والله هذا إسكت أنا ما كان هذا كان وضع أو ماشي جوجي مقلة وعيسى تربي يعني ترسم وضد ماشي مقالة كوسو كره الله يقان أو معرفين وضدك كوسو كره أو ولي قاب كوسو كره نوال على يسوي واحد سوقتين تربي صدم سنو شغينا دورنا كوارد دورنا هو استا انترناشونال متقنا سبورت ساينس او استا متقنا ادمنستريشن او بي اتش جي او تا marka ani hadaan ku damcana duraan bedelo waa inaan aqaana linkiska dhamaa waxay u qaadanaysaa waxyaabo badan. marka ani waxaan qabaa dadkaas in loo dhaafo, ilaahayna lagu dhaafo, ayna waxoodana ay wadaan. maxaa yeelay waxaan arkaa inay naga fiican yihiin boqolkiiba boqol. doorasho la qabtay ani yaa la doortay ma haysto, qofkii laga baxo la doorto waa Soomaali, laakiin waa in ummadda la soo dhexdhigaa. waa haddii la wada leeyahay, haddii laakiin gaar loo leeyahay dee sida doonaha laga yeelo. tan labaad aniga aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay dadka qurbaha ku nool waxay u qaybsameen dad shaqadoona turbaanka u tuma oo bari jaga halidin siiyo. dadka wadanka waliba special English ku nool waxay u badan yihiin dadkaasoo khaldan iyagoo og ayay durbaanka u tumeen ay leeyihiin wallahi dad fiican weeyaan. sababtu waxay tahay waxay rabaan in la magacaabo oo dad badan baa la magacaabay, haddaba waana la tuuraa, waa lagu danaysanaya, waa la tuurayaa. haddii durbaanka u tuntid waa lagu magacaabaya. haddii laakiin aad cadaaladda amba sida ay tahay sheegtid meeshaas wax allaalo waxaad ku leedahay ma laha. marka laba guruub baa la kala noqday. guruub way cabsanayaan oo marka la sheekaystay dad cabsanaya waa in wuxuu ku leeyahay annaka wadankii rajaan ka leenahay ma la handaday
taxi passenger baa loo soo diray anu garan maayo waxay ka baqanayaan garan maayo iyo group iyagu ejagadoon inay yihiin waxay nimankan u ammaanayaan tagay u baahan yihiin in la siiyo aniga aan aniga waxay aniga hadda waxay cad inaad qoyinka jagadoonka ka mid tahay xasan okay wax ma عليه ani taas ii muuqata jagadoon laakiin saas waa la kala baxaa wallahi waa la kala baxaa hadaan ahay aniga isbartiibada la waar kala weligeena Sweden kan oo Sweden kan ma tigin ma la ka daba qayl aniga حسن قف والك انصر اخاك هذا الدين بتكون هدليسي انصر اخاك ظالما ومظلوما انصر اخاك ظالما ومظلوما سوما والك عبدو خديه هدانا دخلت كل شيء ضد باوت تحزن منافق بطهي وانا وش شيء دخلت كيس مو حد لي دكر هذا واحد يسبنين واصحسين انا ما كانت شعلي ما كانت شعلي ذا واي اي سي مو وحان دتك لو وعين واتاي idinka raali horta mid jirta waxay tahay aniga adiga waxaan kala nahay laba mentality aan kala leenahay ma ahan aniga aan kugu qaso adiga mentality-da aan qabto amba aan ku caayo ku ilaa waxa saa tahay waa ma fiicno haddii ay yihiin nimankaan niman wax tiraayo amba wax u qabanayo wadanka waa jooga lama kala mogta way cadaalahayeen adiga wiilkaaga kan iskoolka aad kan aadin kan iskoolka aad waa taqaanaa ay kan aadin yani ani baran waa qana waa dheeli jiray laakiin hadda waxaad lanta soo jooga ana shahaado weyn haysta Abdullahi Muhammad Magaari markay commitment u dhagay صح niman kan commitment ay sameeyeen wadankii baroon hal yaqaan ambayaan la aqoonin waxay bay barteen waxay bay ku shaqeey jiraan oo aan ay ku shaqeey jiraan tarsan hadduu joogi lahayd inta ano kale u ahaa lahayd markay intuu joogo laakiin waa baxyay waa survive gareeyay wuxuu haystaa دوك مقالة صح إيه محمد دير عن حول دير لكن واحد حول دير كراج حول دير إيوه سومال نمو صح ماذا كوها يا مركب هدي أو ربو إن أو قفك وحنا قضوا السجع إسكندي كارو أما بنوني هدي اللي جيرو أما بيوني اللي جيرو تاريخ وحنا كوها هنا دت كبروني اللي جيري إيه دت كان بروني اللي جيرين أنت صح كنت أنت بروني اللي جيرنا بدن صح أي كولكا أيه هلو السلام عليكم هلا واكو بغلينا والله وعبد اوكي هاي لا سومالي انا وقرنا عبد اوكي مركا waxaan dhageysanaa TV saalooyinkiisa هاي waxaan fiican in horta arrimaha laga hadla waa xiriirkuna maamul iyo technical sports iyo garsoorayaal wax walba u leeyahay waxaa fiican marka in sportiga nidaamkiisa hasa cusub iyo maxay saaciid laba dhinac laacibin waaye صح مثل لاعب كان عيارتويا أنا ما قربان جولا عيارتويا معي قرن وباسكت بول معناه هذا معه إن أنا عليك تسوي كل رأسه أما لو نركز عيارتويا قرن كان حاد حد صح وحاول ماشي حريرة جرو وزارة السبورت قاعد جرو دولة بدر وحاول أكسب مركز مامورك وزارة السبورت وزير لنا هاي نظام كاس إن لود ده بعد دولة وعادل ولا سنة نقطتين إن وزارة السبورت وزير اللي هاي وزيركم نظامكم وحلوم العاب النظام يده وحوالي وحول بالعالم كمصيحي كرة مركو ولا لي وحاسي عن هدي أنا واحد دونا يعني عبد أوكي أنا لدنا كنا ولاي وإنا تقاتلك صح ولا يجي كان لكن ما أن إنا المامور لقيت بما وإلا في شاء قلت النظام كأنيك حالتنا يكون شمطة مركز كده وإيقوا أبون إلا لقيت بما ونفسه لكن كفر بعدون يعني حياتي القرن هاي جاكان هلا يصير يعني أرين عجيبة واحد حياتي القرن كأبو ودتي بيقاني وحاول إن أفكر صوت الدولة ما تكتب في وزير الإسباتي واتاي وام كان واحد يقول ترى الحي ولكن حاجة يسوي شيء واحد من حياتي القرن أو مامور أحيانا أنا كان نجرو وأقول تسليته وارنتا بس ما حكيش اللي يدينا وحنا الخدمة ومية وإن واحد ولا جاء وإنا مركز عنيق اللي بقى نظام أحان إلى الضرشة إذا قالين بعد ما اللي توع يطوع كرن سؤال وواحد لكن ما من هاللي ديو معناه دويا ما في علو مركز هدام واحد قولي إنه ضمن اللي قالنا إلى الضرشة تقول وضكنا أن ما نتوحوا قبله دبدنا عن الشرطة لونا مركز وعقبنا إلى مسؤوله أخوان ده سنة ليه وما سنت عزبا عبدي هذا وما سنت هاي أنا وحن كقنعيا وحي وإن سومالوين لتصاه si annakii dibadaha ku nool aan ku qanacno
aniga maxamed aan haddaan u baahanahay mar horaan tegi lahaa meeshaan tegi lahaa lafteedii haddaan aniga meeshaas wax ugu baahnay anu meeshaas waxba uguma baahnayn shaqooyinkoodana rajana kama lihi mana helayo sababtoo ah dadka durbaanka ka daba tuma ma yihi sababtoo ah ninka walaalkii hadduu khaldan yahay waxaan jecelay inaan khaladkiisa u sheego sababto waxay tahay horena waa u sheegay wasiirka isboortiga oo shilka horena waa u sheegay shilkii hoteelkii ku dhaawacmay oo dhaawaciisii Kenya la geeyey Saleebaan Cunaad Allah u naxariistay la qaaday Sacuudiga la geeyey laba bilood oo hal maalin dhiman Sacuudiga ku joogay kooma ku jira intensive care nin kamida Olympic-ooda la sheegay hadda aniga la iga dhigay inay yihiin dad aan dab lahayn nin kamida oo meesha ugu tagay waa jagadii ninkii ugu sareeyay waan wasiirka isboortiga waan hal qof oo kamida u taasiday xita kuma jiro dadka la ii sheegay aniga waana wada noolaayeen waana Djibouti wada fadhiyeen taariikhda dhigaysan waxa askaygan ka sheegay maan nin bal ninkii ii sheegay nin kamida ayaa isbitaalka Sacuudiga ugu tagay wal Bangladesh iyo Indonesia ba inta la tagaa calanka Soomaaliya jeebka laga baxo waa la suli jiray wasiirka isboortiga oo waxa lagu tagi waay maloma tagi sababtoo isku mabda aan ahayn nin Soomaaliyeed buu ahaa nin mabda uu ahaa nin ciyaartooyga Soomaaliya ka soo tagnay ayuu wax u sameeyay meel ay isku yimaadaan taariikhda dhigtay meel ay ku kulmaan buu sameeyay la isku yimaado maalintii lagu sheegayso ayuu sameeyay marka mabdaoodii baan wadanin ma loo baahna wuxuu wado ilaahay ay rasuulaan wax kale aan sheegi kara male ina su'aal weydiina maxamed waxaa jira 22 years wadanka marka laga joogay hadda ciyaarihii dhawaan dhacay Soomaaliya wadankan aan joogno waxaa ka dhacay Olombikada orod ay qaabis hadii aragtay okay waxaa jira dhalinyaro badan oo ciyaar ka qayb galay xalna qata ciyaartii Ethiopia Uganda ma aaminsan tahay wixiyaas la qabtay dadka qaar waxay aaminsan yihiin magaca iska jiro hal iska tago dadka qaar waxay aaminsan yihiin meesha magaca nooga dilino hanoo laga dhaafo maslada horumar lagu sameeyo masa Ethiopia wadanka la leeyahay oo dariskan hayo siyaasadana kala fogeysay weligii Allah ku Ethiopia ciyaarsi inta bloon dheelay ma arkin aniga maxamed haan taariikhdaana sheegayso bargay bartamaha Afrika wadamo badan wareegtaheed waa lagu qabanayay Soomaaliya lagu qabtay Tanzania Zanzibar lagu qabtay oo ka qayb galay Soomaaliya lagu qabtay Kenya lagu qabtay Uganda lagu qabtay Malawi lagu qabtay Zambia lagu qabtay Sudan lagu qabtay koox Ethiopia tibid ma arkin aniga intaas oo dhan 10 sanadood way u imweyn Soomaaliya culihiin ma ku gooyeen maya sababtoo Soomaaliya imanin annaka marka wadankooda lagu qabto siyaasadna kalfusiyaan u tagin laakiin marka Kenya lagu qabto waa usmanahay waa inay tagaan annakana aan maadna weligii ma arkin koox Ethiopia dad badan aniga ma iska hadal maahan dad badan baa nool oo waqtigaas la joogay amba xamarka lagu qabto meelaas dad badan ciyaartooy ila mida ayaa ka qayb galay oo hadii laga yaabo in ma qaarkood inay dhigeysanayaan inta wadan lagu qabtay ka qayb galay kamay soo qayb galin sababtoo ah koox ma heenin ay la shirtagaan annaka laakiin hayalla qofka rabna iska geenayna muhiimadu waxa way jeebkeena waxa soo galaya jeebkeyga aniga maxaa soo galaya wadanka ha laga badiyo 9 ha laga dhaliyo 100 ha laga dhaliyo shaqaan ku leeyahay bale muhiimadeedu waxa way in koox geeyo aniga maxaan helayaa taasa taalo taasana cadeynaysa Ethiopia waxay u tagi weyday 10 sanadood ciyaaraha barigay bartamaha Afrika uga qayb galay sanad iyo 2 iyo 3 ma 10 sanadood kama qayb galeen way taasa taalo su'aashaas taalo anaga 20 sanadood ma bursaneen 20 sano aan bursaneen iyo intaan barkaan balool dheeli jiray waxa la keenay 20 sano bursanaa faa'iido badnaatay haya maxaa cadeynay waxa cadeynayo gabdhihii qadar ayaan dawad markay tagay meel fiican ay galeen anaga laacibiinteena qaarkood inta nimada waxaan dhahnay dadkaas waa fiican marka mugaad fiicnaatan oo kula jira maya gabdheed maya anu waa sheegay anu waxaan leeyahay kooxda laga keenay Mareykan waa koox CV leh waa la badiyeen waxaan weydiiyay aniga balooniga si fiican u magalo dadka lama imaado idaacada nagu artaani inta badan lama tago waxaan weydiiyay gudoomiyaha qurbajoogta Axmanuur aan weydiiyay oo la taliyaha oo mataqaana Olympic wasiirka Olympic aan weydiiyay waxaan dhahay waxa wada waa qaldantii waxaas wuxuu ii sheegay in hiwar baa ku qoostay waxyaabaha say u shaqeeyayaan oo ii sheegay ani dabacada waxaan leeyahay waxa kama waxa runta aan jeclahay aniga ma jecli qof maartay inaan dulmiyo ama aan wax ka sheego ninkan oo banooni joogo Soomaali ciyaar jiro banooni joogo on active ahayn xaq uma aha inuu ka qayb galo waxa ahay magaciis shirka in oo banooni ka hadlo markay active ma Xasan kooxda qaranka ee kubadda kolayga ee wiilasha 1997kii koobka jaamacadda Carabta oo xamar lagu qabtay ayay qaateen ku guuleysteen kooxda kubadda cagta oo anigu aan kamid ahaa kaalinta finalkan ciyaarnay maalintii ugu dambeysay annaka Ciraaq soo baxnay waana laga badiyay kaalinta labaad baan galnay
kooxda ciidamada qalabka sida horseed berigay bartamaha africa ilaa finaland gaarnay adigu waxaas dhan waa ka hurda xasan Maya. hebelan la tashaday hebelan weydiiyey Maya, maya. ay ugu haysaa Maya. waddanka inaad ka maqleyd aan u malaynaya maya